degmada barqoban ka yimid 20 neef aan wata 15 neef aan ka yimid wax la iga gadana ma jiro wax bihi waxaan ku bixiyaan laa eego oo maanta kabtana qaarkeed farfadhiya waxaan ka soo guuray haradigeed waxaan nimid halkan kala waxaan soo guuray 19 geedi haraadka iga muuqdana waad aragtaa eega 10 sac baan qaaday xeradiina 25 sac baa taala halkana dhibaato ku haysato annagu waxa la yidhi indhay isla ooyay isma aamusiyaan waxba annagu uma qaban karro ladu waa agaray dam daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa dhaamka Xaaji Diiriye oo ah duleedka degmada Gaashaamo halkaasi oo culays badan uu ka jiro ummad badani duleedkeeda ay ku soo guurtay taasina ay xilligan mar walba marka ugu dambeysay si adkaanay Ibrahim Umar Xuseen baa la yiraahdaa xageed ka soo guurtaadan waxaan ka soo guuray haradigeed waxaan nimid halkan kala waxaan soo guuray 19 geedi haraadka iga muuqdana waad aragtaa eega 10 sac baan qaaday xeradiina 25 sac baa taala kabtantada intaas oo ceel oo afka ka xidhan baa oo mishiin la'aan la taagan baa taalaana la yiri ceelasha naloo furan leenahay waka marka caqabada ugu weyn ee haysataa waa biyo la'aan iyo masaariif la'aan waka fariinta dawladda u diraysan maxay tahay heertiga intaan dawladda u diraynaa waxa weeyaan cunto iyo biyaba si degdeg ah noola soo gaadho dawladdu haddii ayna danaynayso weeyaan oo ummadda danaynayso waxaan ka soo guuray gunagado marka ilaa 3 degmaan geedi ku soo mar 3 bilood oo dayra iyo 3 hagaa iyo 3 jilal hadda marna 9 bilood roobnimo dul qaban inta loo baan wadnay looda wax miisaanka wax yar baa hadda ka sii jooga dadka wada cunto male irmaana meesha biyo aan lahayn ee qasabada yar ee labiga gidiga habeenkii 3 markay qaday habeenka dambe iyo cabtaa wax tuubada khalqiga aragtay fariisa tuubada yar dhirqaqlaa biyo xagaas waa xaga biyaha umada ilaahay waa meesha waa ku oomanta xaga kale anagu xoolihiina laga magato cuntana ma hayno caawimo kale dawladda ma naankeed marka hadee xaga gargaarka ilaahay xaga ilaahay buu jiraa laakiin wixii la qaban kariyo warbixinta iyadu waa sida dadka deegaanka aad iyo aad bay wanaagsan yihiin waxa la wax kale macna xaga dawladda mooyay dadku waxa la wax inaga xaranayaan shacabku wanaag ay waji furan bay noo hayaan degmada barqoban ka yimid 20 neef aan wata 15 neef aan ka yimid wax la iga gadana ma jiro wax bihi waxaan ku bixiyaan laa eego oo maanta kabtana qaarkeed farfadhiya booyad maxaad ku haysan weyda bartii joogtaa aad ugu shubay maxaad booyad loogu gaday biyihii 5 riyaal baan ku bixin laa waxaan ku bixiyaa laahay 3 cishaan saylada geey 3 waan soo rogay juu looma dhahayo biyihii maxaad ku bixin ba annaga qutul daruurigeela bariiskii baan laanahay aduu waxaad sheeg booyadii bariiskii waxaan ku bixinaa laanahay marka caqabada ugu weyn waxa weey loodii meeshii soo gaari weyday iyo waxa cunteen oo laadii labadaas weeyaan annaka baahidanada iyo loodii weey waxa weeyaan halkan maanta in kastoo day warku uu wacan yahay wallahi anagu war khaliya ma aanan filaynin halkan dhibaata ayaa ka jirta ibnu aadanka meesha jooga iyo kuwa soo guuray waa isku mid waa isku naf qolo waliba waxay u baahan tahay cawska iyo biyaha anigu waxba kala degdegmayn maaye waxa soo saakilkii waxba kama maqna dawladuna way ka warhaysaa waayo waxa la hadlay anigu hogaaminta sare iyo hogaaminta dhexe iyo hoose saddexdaba maanta maaha yaa la xukumaya yaa la maamulaya dadkii wax weeyaan dhibaatada haysta waa la arkaa xoolo maalinta ka dambaysa way sii jilcayaan anigu halkan bil iyo dhowr iyo 20 habeen ayaan imika ka soo toosayay waan hadal kale ma jire caawa jiilaal waa kala badhay waxa inoo haday bil iyo dhowr iyo 10 cisho xoolina way sii jilcayaan dadkiina imika wuu jilco isna waa sakara waxaanu leenahay haddii ay jirto cid danaynaysa cid ay xukunto ama maamusho gobolka jarar badidiisa halkan buu joogaa waxaanu leenahay baaq degdeg waxaanu diraynaa halala soo gaadho biyo iyo raashin labadaba dada joogtay ee soo guurtada kala gedisan beesha heebaysay waxyaabihii kugu caqabadii ugu weyn ee aad aragtay maxay waxaan arkaa dad aan wadan weel oo aan wadan guryo oo aan wadan xoolo la iibsanayo oo aan wadan gaadiid ay wax u saaran yihiin oo xoolo qalalay daba taagan oo iyaguna weliga anigu ma oo ku daba qalalay gacan allaale gacan u imanaysaana aanay jirin gurigii iyo reerkii iyo caruurtii uu ka yimina warwarkoodu saaran yahay halkana dhibaata ku haysato annagu waxa la yidhi indhay isla ooyay isma aamusiyaan
waxba annagu uma qaban karro waad og tihiin soomaali meelay joogtaba waa isku mid inaan saylad maanta soomaali u furaniba hadday geeltay hadday adhi tahay hadday loo tahay hadday inan la guursado tahay hadday inan wax soo diro tahay arladu waa agarey dam waxaannu leennahay dadkan ha la soo gaadho baaqayla dhaana oo caqligii odayaasha ah oo caqligii islaamnimada ah. xaaji mustafa waxaad nooga warbixisaa balqaabka riigan u shaqeeya. aniga magacayga xaaji mustafa maxamed aadwey operatorka meesha iyo odaygaba waanahay. riigu waa riig aragtida tumbadiisu waa tu hiij waa wax yar weeyaan marka riigu marka hore wuxuu waa riig dheer oo 600 mitir qodan dhulkana ciid iyo wax buu leeyahay kulay dhibaato badan baa ka jirta. tuumbadu waa tu hiijkaas ceelkuna wax kaydaha uu leeyahay ma jiro. tuumbadan markaa waxa weeye qaabkaan u shaqaynaa waxa weeye inaanu 3 galabnimo mashiinka istaadhno waxaan u istaadhnaa ka bilowna waa lo waxaas dhex socdaana waa dhaan waxay gaadhaa loodu waxay gaadhaa 8 habeenimo ayay ku gaadhaa biyaha waxay qadaan laba qolada loolida waxay ka dhigataa inay 3 caawa u noqonayso markaa 3daas ayay ku qadaa sidaasaan u waraabinaa geela waxaan u furnaa 6 subaxnimo ilaa 10 subaxnimo ayaan waraabinaa baabuurtu ilaa muxuu ahaayay 8 ilaa 1 ilaa 2 meelahaasaan ku gaarsiinaa ceelka waa runtood nimankan meel walba horta waa laga soo guuray laakiin waa la kala geedi fog yahay mid dhow iyo mid fog buu soo guuray ceelka uu dul fadhiyaa ummad ilaa 10,000 oo qof ah ayaa dul fadhida aad iyo aad baa degma ahaan iyo muxuu ahaayay shacab ahaanba xilka la isaga saaray waana mas'uuliyadna saaran waa la barooranaynaa waa la oodaynaa